إنا لله وإنا إليه راجعون حق الله أيان كنمت إسلا حق الله أيان الله بنينا waxaan xanuunka murugada iyo dhibta ay dareemayaan aniguna inta mid la eg la dareemaya ehelka iyo caruurta fanaanka Idle Yare oo magaalada Nairobi ku xanuunsanaya muuqaalkeenu maanta kama hadlayo wax kasta oo aan horay halkan idinku soo gudbinay waxa uu daaran yahay in dadka Soomaaliyeed ee baraha bulshada codkooda wararkooda iyo siyaabaha kale ee habgudbintooda looga daawado dhammaantoon oo isku duuban halkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aan kaga codsanno inuu qayb ka qaato caafimaad raadinta Ilaahay ha u dhibdhaame fanaan Idle Yare oo magaalada Nairobi ku xanuunsanaya oo aan iminka joogo Idle Yare ehelkiisa oo aynu la xiriirnay daqiiqadahan aan idin waramayno waxa la sheegay in xaaladiisu ay aad u liidato bura madaxa kaga soo baxday iyo cudurro kale oo haleelay ayaa la sheegay inay sabab u tahay dhibta haysata sida daraadeed dadweynaha Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah ee wanaaga iyo iscaawintu ay jiritaankooda asalka u tahay waxaynu dhammaanteen cod ahaan kaga codsanaynaa in ay gargaaraan oo ay garab istaagaan walaalkeen alfanaan Idle Yare oo magaalada Nairobi ku xanuunsanaya Idle Yare waxa uu bartiisa Facebook ku soo qoray Ilaahay baan idinkaga tagay caruurtaydiyo taas oo taabatay dhammaan qulubta dadka Soomaaliyeed ee baraha bulshada jooga iyo inta kale ee fariinta iyagu isgaarsiiyay sida daraadeed dadka Soomaaliyeed ee baraha bulshada codadkooda aad ka daawataan ama aad ka maqashaan ayaa muuqaalkan si wada jira madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaga codsanaya in loo gurmado si waliba degdeg ah walaalkeen alfanaan Idle haddii uu noolaado waa aabe caruurtiisa ku filan haddii uu geeriyooda oo tii Ilaahay ay u timaadana waa nin u baahan waa aabe u baahan in caruurtiisu aysan dayacmin oo la sii garab istaago qofka muslimka ah ee caqiido marka uu leeyahay caqiidadiisu waxa ay sheegaysaa in loo baahan yahay in uusan quusan oo raxmadda Alle uusan ka quusan sida daraadeed yaanan wax badan war idinku daalinin walaalayaal codsigeenu maanta waxa uu yahay inaad ka qayb qaadataan in walaalkeen alfanaan Idle Yare loo gargaaro qof kasto bini aadamihi waa xanuunsan karaa qof kasto muslim ahna marka uu xanuunsado jirkiisu xanuunka uu dareemo ayuu muslimka kalena jirkiisu dareemaa sida diinteenu qabto sida daraadeed min fadlan walaalayaal waxaan si wada jira dhammaanteen idinkaga codsanaynaa inaad Idle garab istaagtaan garab istaagiinu wuxuu qalbi dhis u yahay dadka Soomaaliyeed ee iscaawiya wuxuu sidaas oo kale in uu ka boodo xaaladda uu maanta ku sugan yahay u tahay Idle waxay himmadoodii soo celinaysaa iyo farxadoodii caruurtiisii oo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay ogaayeen sida uu u barbaarin jiray Ilaahay xaqiisa ayaynu u laabanaynaa xaqiisa ayaynu ka nimi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun fasiraad kale haddii aan ka sii bixiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun daliisheedu kaliya ma ahan qofku inuu dhintay wuu nool yahay Idle Ilaahayna ha u boogadhayo oo caafimaad umu waayine Ilaahay mid soo degdeg oo caafimaad ha siiyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee aad dhageysataan maalin walba codadkooda iyaguna daawada walaalkeen Idle Yare maanta waa uu nool yahay ولتيسي ما يسنقلين الحمد لله الدنيا يا آخر الله أبهايا أو واسع لكن ما أنت أو دنيا أوجوه واسع كلام مهم إن أنا أعاون شعب كصوماليات أو لم وحنا مثلا أو مرجعوضة في الصومالي كوجوه مدن مدحوينه حسن شيخ محمود وحنا مدحوينها كعد صنايع
oo aan codkayga ku biirinayaa saaxiibada tirada badan ee barnaamijkan walaalkeen cali aadan muumin oo noo soo diyaariyey ka qayb galaysa in madaxweyne aad fadlanna dhegaysato oo codsigeena tixgeliso oo aad iidle maanta xaaladda uu ku sugan yahay ee caafimaad la'aanta haysa ee laga heli karo in dhakhtar inta la geeyo qarashka ku baxaya laga kaasho madaxweyne inaad ka caawiso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي هرت أنت عافماد وحوق برينا ولكن قالقا إلا عبد الله إلهي إنه عافماد دقدقا السيو مدن مدحوين عطسيا وضنا لنت سومالي هدان هني إلهي إنه أجري حسنات كاسيو دل كان إداد كبا أدقا لقود داري إنا ما أنت يدلي أدوح وقبطو يدلي حالة ديس أد بيوحونتا مدن مدحويني وحرجين دون عدكين إنه كسو قاردون إن شاء الله. أنا أقول لي بأن هذا عليها waxaan rabaa halka inaan fariin aan ugu diro madaxweynaheena dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa dhammaan anagoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaca iyo masabka ku leh bulshada Soomaaliyeed in aan fariintan aad ka soo jawaabto xiriirna aad la sameyso dhanka caafimaad ahaan walaalkay fannaankeena iile waa walaalkii maxamed cabdilkariim cali maxamed agshay oo ku magac dheer walaal agshay oo idin leh sida caadiga nooc inta xanuunsan ilaahay xanuunka ka inta caafimaad qabta ilaa caafimaadka u ziyaad waxa si niyad ah meesha aan u codsanaa mudana madaxweyne ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku dhaari dalka iyo dadka adiga mas'uulka ah maanta walaalkeen idiyada xaalad adag ku jira ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku dhaari mudana madaxweyne walaalkeen idiyada xaaladiisa ogaan aniga hanad cumar waxaan halkaan baaq ugu diraa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud inuu iidla xaaladiisa weli si gaar ah degdeg wax ugu qabto waxa la soo yiraahdaa iidla xaaladiisa inay tahay xaalad aad u xun balki waxa ilaahay ugu bareen ilaahay caafiyo iidla waa ogtiin in badan dadka Soomaaliyeed umad Soomaaliyeed wax badan u qabtay dad badan wadada fadhiyo waxba aan haysan wax tare marka maanta u baahanaa iidla sharaf noo helay maanta uu fiilan ugu baahay magacaygu waa Zakariya Maxamuud Timacade waxaan ka mid ahay kooxda wariyaasha ee markaan bilaabay codkooda inay meel dheer u gaarsiiyaan fanaanka iidle oo sida aad wada ogtihiin ba xaaladii ugu adkeyd markaan ku jira waxaan si gaar ah ugu baaqaynaa madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa dhammaanteenba inuu ka qayb qaato samata bixinta xaaladda caafimaad ee markaan uu ku jira fanaanka waliba dal aan dalkiisa ahayn ayay xaaladiisu ku adag tahay madaxweyne markaan waxaan ka codsanaynaa dhammaanteenba inaad kaalin weyn ka qaadatid samata bixinta caafimaadka fanaankan da'da yar ee mustaqbalka wanaagsan leh magacaygu waa Nimcaan Gulwade runtii waxa weeyaan waxaan halkan ka codsanayaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne dalka iyo dadka baadiga ka mas'uul Ilaahay ka sokow runtii waxaan aad uga naxay fariin aan arkay social media aan ku arkay fanaan ummadda Soomaaliyeed qiimo ku dhaxle alfanaan iidla yare oo xaaladda ku sugan madaxweyne si sharaf leh waxaan kaaga codsanayaa inaad ninka dhalinyarada aad gacan iyo garab aad siiso fariintani waxa ay si toos ah ugu socotaa madaxweynaha Soomaaliya oo ciida calanka dadka iyo guud ahaanba Soomaalidu meel kasto ay joogaan mas'uuliyadooda u dhaartay fadlan madaxweyne ilaah baan kugu dhaariyay xaaladda iidle si degdeg ah wax uga qabo